السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إي مقدشة كوكين maanta waxaan rabaa inaan inoo sameeyo subag sixin ah because inagu Soomaali baan nahay Soomaalina waxa lagu soo koriyay waa subaga marka subaga sixinta ah ha iska badinin hadda qof weyn tahay sometimes bad cuni kartaa laakiin ciyaalka yar way u baahan yihiin digsigan imka waxaan ku riday subagii waxa halka iyaalay bileedka yar ku jirana waa ged xamar qofkii yaqaana كل Soomaalidu wax badan oo carfisa oo noocyo kala ay ku kala darsadaan laakiin dadku si u badan yihiin waxaan malaynayaa ged xamarka inay garanayaan ged xamar ayaan iminka ku daray ged xamarka ay isagan isku yara shiilaya cabaar markay maxaa la yiraahdaa iyagu isku shiilmaan iminkan waxaan soo qaaday in yar waxay tahay budo ah budada waxaan ugu daray wax subag wuxuu leeyahay caanahaas si ay uga qalalaan hoosta fadhiisanaysa caanihiina way ka shaqaysaa subagii oo kaliya taa soo haraya oo saafiya marka subageen wuxuu noqonayaa subag sixin oo saafiya talo halkee laga keenay leedahay ma baadiyada Soomaaliya laga keenay murtiyay maguura taariikh la soo maray sheeka macnayse xamar waa madafaan waana laga maarmaan malkii dalkeena imika uu kala fadhiistay imika waxaan soo meeray madiibadii aan ku shuban lahayn madiibada markaa waan soo meeray markaan soo meeray bacteria-da rabtaa in laga dilo waxaan gelinayaa microwave-kan ku qalajinayaa bacda microwave markaan ka soo saaro ka bacdina subagii uu inoo kala fadhiisto oo uu qaboobo ayaan ku shubayaa marka kulli shay kasta hadda wadankani aad ayuu u badan yahay bacteria-diisa waxyaabo badan oo maxaa la yiraahdaa ilbiriqs bacteria-da ku qaadaysa jirta marka kana iminka waxa weeyaan waa shaygan subaga ku shubi lahaa wayna si fiican bacteria-dan uga dilaan u qalajiyo si kastaan u meedho hadda khal baan ku soo meedhay saamuun baan ku meedhay haddana waxaan gashay microwave-ka iminkana waxaan inoogu shubayaa subagii ila arka subaga siduu u eeg yahay subaga waxaad leedahay talow halkee laga keenay qof walba wuxuu ku fikirayaa meeshuu deganaan jiray talow laga soo shiilo isleeyahay hadda ila dhadhamisan ba kasi wanaagsan qofkii raba in aan soo sawiran waan soo sawiri karaa in hoosta wixii commenti halaygu qoray insha Allah bismillah kareem dalxan subaga dhayo karuur dhaylaadiyo jirka dirta xabagta laga soo miraqa dhuumanta dadamiyay kuma toorsan karo dawta dibadeedii dexdiisaan ku noolaanayaa jirgulnaydi waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa bahda muqdisho cooking oo idin leh Soomaaliya ha noolaato